وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد دمان أديتهاي مدحدا حسبك odayaasha aadka u qiimaha badan iyo dhalinyaradaba ee maanta xisbiga ku soo biiray ee aadka u qiimaha badan haday tahay dadweyne halka isugu yimi iyo inta saxaafadda kala socota assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaan runtii ugu horeysiinayaa si gaar ah u soo dhaweynaya tiimka maanta aan galbinayno ee xisbiga soo galay ee qoorweyntii Soomaaliland ka muuqato ee dadka aadka u qiimaha badan ka muuqato ay horkacayaan wasiiradii dakhiliga soo maray saaxiibkay Cabdilaahi Ismaaciil Ciro iyo Sultan Jambiir waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa xisbi aan la kala lahayn loo soo kala horeeyay xisbi ay saldhig u tahay wax wada lahaansho iyo qarannimo iyo midnimo waxaan idinku soo dhaweynaynaa saaxiibadiin Soomaaliland ka soo wada shaqayseen marar kala duwan waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad tiimka soo galay waxaanan ku faraxsanahay runtii oo qalbigayga aad iyo aad farxad u buuxisay inay rumowdo himilada wax wada lahaanshaha ee qarankeenu inuu ka guuro qabyaalad oo uu qarannimo u guuro himilada noocaas ah inaynu wax wada yeelan karo oo aynu inagoo kala qabiil duwan wax isku darsan karo oo muujin karo maanta yaa mudan iyo maanta ka mudan aynu sharaxno aynu dooranno aynu wax ku dooranno qarannimo aynu wax ku dooranno qofkii maalinta inta taagan ugu mudan macnuhu ma aha saddexda musharaxiin dalka ugu mudan yihiin macnuhu ma aha in Cabdiraxmaan Ciro oo ah madaxweynaha aan dhisayno inuu ugu mudan yahay dadkoo dhan maantuu nasiib u helay saddexda sharaxan buu ugu mudan yahay saddexda sharaxan ayuu ugu mudan yahay taasaa qarannimada tay isku xejinaysa inaynu dooranno oo taa wax ku dooranno hadda u fiirso halkan saaxiibkay oo aan golaha wasiirada ku wada jiray Maxamed Jaamac Abgaal ayaa wuxuu ka dhawaajiyay mujaahidnimadan bal goormay naga hadhaysaa iyo bal noo fasira labada shay runtii midna waa taan iminka ka hadlaye ay ka hadleen wasiiradii hore ee dakhiligu ee qabyaaladda bal hadda u fiirso waxa jirta kelmad la yaahdo yani hadiya jeerale hadii shay sax ah la xumeeyo waji xun loo dhigo waji xun buu noqdaa walka laga yiraahdo kalimatul haq yuraadu biha al-baatil kelmad xaqa hadii baadil looga jeedo way xumaataa kelmad xaqa haddii baadil looga jeedo way xumaataa maxaan uga jeedaa haddii qabiilkii oo ilaahay sameeyey oo ilaahay sheegayna jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila oo ilaahay quraanka ku sugay oo inaynu qabaa'il nahay oo aan ceeb ahayn laakiin se muxuu raaciyey ina akramakum cinda allahi atqaakum kuwa idinku sharaf badan ilaahay agtiisu ma hareer rebelnimada waa kuwa ugu cabsida badan marka waxa lagu muujiyay in qabyaalada wax lagu kala fadilay hadaba qabiilka noocaasa ee ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay ee sugay ee quraanka ku sugan ee haddana maxay kale ku sugan tahay marka laga hadlayo waxa la yiraahdo maqaasidu shariica ama shariicada iyo maqaasideeda nuxurka iyo dhuuxa shariicada marka laga hadlayo islaamka maxay diintu soo degtay baa la yiraahdaa diintu waxay ilaalisaa shanta diintu ilaaliso nasabku waa kamid aqliga nafta bini aadanka nasabkiisii iyo ardigiisii maalkiisii iyo diinta lafteedii bay diintu soo degtay ilaaliso marka nasabku waa wixii diintu ilaalinaysay ka noocaasa goormu waji xumaada wuxuu waji xumaada marka qabyaalad loo bedelo ee suxun loo adeegsado ee lagu adeegsado
lagu shaqaysto ninkaan kartidiisa ku meel marayni tolaya reehbal ay yiraahdo tolaya reehbal ay markuu yiraahdo ayaa qabiilku xumaada oo qabyaalad noqda qabyaalad isu bedela Allah naxariistay horana halkaan uga xusay gaariye hore halkaan uga xusay gaariye oo yiri maxay uf qabiilka ana leh wuxuun baa eeliya dad ninkaan afaqaaneen midayso ujeedo si wax ila arkaya ilaahay ha naxariisto waxaan marka tilmaamaya qabiilku markaas uu isbedela oo qabyaalad markuu isu bedelo buu xumaada waxaan runtii amaanaya tiimka reer Hargeysa oo badan wasiiradan carabka ku dhuftay ka soo jeedaan anigoo dirkaba intii halka kan aan qiimo kala dhacaan ilaahayna haday tahay Xasan Halas oo runtii ragii ku soo halgamay dalka qalinka ugu soo halgamay 25 sanadood u shaqaynayay inay institutionska ama hay'adaha qaranku meel mar noqdaan anigoo aan xusida ka reebayn dhamaantoodna aan wada marin karayn Ibrahim Meecaad oo ah mujaahidiintii dalka soo halgamay waan doonayaa inaan xuso marka mujaahidka ka hadlayo waxaan leeyahay deegaanka anigoo aan inta kala dafiraynin oo saaxiibkay gacamay wasiirkii hore cadaaladda iminkana ahaa oo maanta iska xasilay xilkii la taliyaha cadaaladda ahaa ee madaxweynaha oo maanta markuu meeshii waxba ka garan waayay cadaaladii waa ka iskaga yimi waxa weeye fadhiya anigoo aan intaaba dafiraynin waxaan si gaar ah maanta u xusayaa deegaanka ay ka soo jeedaan wasiiradan hogaaminaya maxaan u xusayaa dayrkii dheeraa aan lahaa waar ka daaya waariye giraanta baasha leedaan giraan ka dhigno jeegaantu ina dhiqimayso waar jeegaan laba reer ina dhiqimayso ayay iyagoo reerkii sharaxnaa ka soo boodeeno ay buujiyeen qarannimadu inay ka qiimo badan tahay aad iyo aad baan idinku hambalyaynaya waa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad iyadoo ma hadda ay la qabaan tiimka kale maxaan u xusayaa war hadhow waa la isxantaaye inay burada ayna dheer yihiin weliba xaafadeena xagga dhexe lagu sheego inay burada ayna dheer yihiin oo ay ku dhacdaa leeyihiin runtii ugu hambalyeeya dhammaan waa ugu hambalyeynaya maxaan leeyahay way dheer yihiin daada ogow anigoo leh maanta tan oo kaliya aan sheegayn lejanka qabiilka loo soo qaato marka qabyaaladda caydeeda la sheegayo lejanka la soo qaato taariikhda Soomaalida ma aha Soomaaliland oo kaliya Soomaalida meel walba oo ay joogaan lejanka loo soo qaataa anigoo aad u daayar aan ku dhigan jiray iskuuladu Cabdilaahi Suldaan Timacade Cabdilaahi dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaan oo ka soo jeeda deegaankan ayaa ugu horeyn waliba waxa la xusaa maalin xamaasadeed oo qabyaaladii taagan tahay oo laba reer isayaan ayuu ku soo baxay gabayga ah dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaan ilaahay naxariista godkii naxariista ilaahay subxaanahu godka naxariista ka warabay godkana ha nuuro kan labaadaan xusayay iminka sheegayay ah gaariyana uu ka soo jeedaa waarintayna dheeriin sooma ogolaano ila dadku wuxuu isku haystaa intuu isteeriyo la soo ogolaan waaye kaadirka halka maraya iyagoo musharaxi jooga yiri uf qabiilka ana leh reerkeeba leh ka agran mayne maalintii dhaweed awil iyo raaceen warar cadana way noo hambalyeeyeen qolada ka agran mayne waxaanu leenahay waliba korodhsada dooni mayna qabyaalada iyo inay muuqaal ku noqdo qabiil in xisbiyada qabiil lagu doorto dooni mayna in koox aynu noqoto Soomaaliland inay laba reer noqoto dooni mayno qaran baynu doonaynaa meel mara waarin mid kale soo ma qiro waynu qiraynaa waxaan leenahay soo dhawaada tiimka oo dhan waxaan leenahay soo dhawaada aanu galo midkii saaxiibkay uu ka dhawaajiyay